ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxay burburiyeen shabakado waaweyn oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo ka geysan jiray dilal muwaadiniin iyo qaraxyo gudaha Soomaaliya waxaana shabakadaha la burburiyay ay isugu jiraan kuwa la dilay iyo kuwa la qabtay waxaa sidoo kale meesha laga saaray shabakadu qaabilsanayd sahada iyo saadka kooxda ugus taas oo isu ekaysiin jirtay ganacsato kadibna agab sahay ah u kala daabuli jirtay gobolada dalka si ay u gaarsiiyaan maleeshiyaadka jiqgaleenka ee kooxda ugus sanadihii ugu dambeeyay waxay kooxda ugus ee kis al-shabaab isku dayayeen inay ka gacan toogaaleystaan gudaha suuqa ganacsiga Soomaaliya ugu weyn ee Bakaaraha laakiin taas uma noqon meel mar waxaana qorshe kasta ay soo diyaarsadaan si ay suuqa dilal uga geystaan dhabarka ka jabinayay ciidanka NISA ee muuqda iyo kuwa aan muuqan ee ku dhex milan suuqa waxayna isku daygii ugu dambeeyay gudaha suuqa ku dileen maleeshiyaadkaasi haweeney ganacsatada xilli ay ka tukaameysanaysay suuqaas laakiin ciidanka aan muuqan ee NISA oo aan ka fogeyn goobta ayaa markiiba qabsaday waajibkoodii shahaada korona ka ilaalsanayay kooxdaasi bastoolad inta ay ka soo gaarayeen ciidanka ee muuqda ee NISA oo aan ka fogeyn goobta waxaana markiiba halkaasi lagu dilay horjoogii horkacaya maleeshiyaadka kadib markii uu diiday inuu isdhiibo iyadoona isku mar halkaasi laga qaaday gabadhii ay dileen iyo meydka horjoogii watay kooxdii dishay gabadhaasi oo la dareensiiyey xanuunka geerida si lamida sidii uu dareensiiyey gabadhaasi muwaadinada saddexdii December ee sanadkan 2015 waxay shabakad qaabilsan qaraxyada soo maleegeen dhagar ay ku qaarajeen Allah u naxariistay wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo kamid ahayd wariyaasha SNTV iyo Radio Muqdisho waxayna marxuumad Hindiya oo ahayd hooyo haysata 5 caruur ah oo laba kamid ah yihiin agoontii uu ka dhintay Allah u naxariistay wariye Liibaan Cali Nuur oo isna qarax ay ku dileen sanadkii 2012 kooxda ugus xillo ku sugnaa maqaaxida guriga hooyooyinka ay la daala dhaxaysa nolosha shantaasi caruurta oo ay dhabarka u ridatay waajibaadkii hooyada kii aababa Cabdirasaaq Maxamed Barrow oo magaciisa afgarashada uu yahay Macalin Maxamed waa 30 jir ah aabba dhalay laba gabdhood oo ku furay hooyadood kuna dayacay nolosha waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo Muqdisho ku taal ma haysto nolol fiican tii uu dheer tahay inuu ka shaqeysto daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed wuxuu Cabdirasaaq ka tirsan yahay kooxda ugus ee al-shabaab oo u qaabilsan yahay xuuraanka iyo ku dhajinta qaraxyada baabuurta Barrow waa dhagar qabiil dhagre Allah u naxariistay Hindiya Xaaji Maxamed uguna dhajiyay gaarigeeda miino si uu hooyalaan u dhigo caruurtii ay hore u agoonteeyeen kooxda uu ka tirsan yahay Barrow oo hadda ku jira gacanta NISA waxaan kula kulmay xabsi ay hay'addu maamusho iskuma arko inuu yahay nin geystay jariimo weyn waxa uu iga sheekeeyay sida ay ku bilaabatay hawsha ay ku dhagreen Hindiya iyo halkii ay ka bilaabatay magacaygu horta waa Cabdirasaaq Maxamed Barrow bishaan hadda aan ku jirno awalkeedii iyo mid hore inta u dhaxayso bish hore hadda naga dhamaatay iyo had bishan hadda ay socoto inta u dhaxayso dhaxdooda ayaa macnaha waxaan maalmaha kamid ah aan ku arkay xeebta Liido nin lagu magacaabo Xasan Nuur magaciisu xarka ku yahay Sheekh Aways inta Liidaan isku aragnay waa wareysan horena waa soo qoon jirnay waxaan soo dhaxmar wada shaqeyn tiro badan oo dhan oo bulsho ah ay u badneed jimcihi ayaan isku imaanay Liido waan dabaalanay anigu horta waa dabaashtay laakiin isagu waxaan ka arki doonaa gadaal markaan arko ay gacantu ii haadiyay waa soo baxay banaanka imaanay waxaan galnay shaahan dalbanay meelaas ka fadhiisanay shaahi waxa u baxnay gees oo noo bixiyay nin waxa waa aad u jecel inuu u baxo gees warniyo wuxuu yiri Hindiya Xaaji Maxamed ma taqaanayo Hindiya bas yiri Hindiya ma taqaan marka aniguna Hindiya aqoon hadda oo waji ahaan uma lahayn leef ahaan uma aqaano marka waxa ay Hindiya aniga ma garanayo balse Hindiya maxay tahay waa islaan oo xitaa qabiilkiisa ay sheegay maxaa ka taqaanay markaa waxaan ku ogaayay in la shaqeyso wasaaraddan isgaarsiinta la yiraahdo ما waxaan ilaahay wasaaradda warfaafinta
raadiyo muqdisho iyo waxaas ama telefishinka waxaas oo kale xasankii wuu soo istaagay shayaan dhamaysanay xogtaas ayaan kala qaadanay ani isaga rag badanna waa ii sheegay oo dhahay oo leeyahay waa ku soo salaamayeen oo mar hore ugu dambeysay oo ii sheegay shaahi waa ka kacnay meel kale haddana tagnay oo waxaan baddaan iska laabanay waa soo baxnay waxaan ka qadinay adiga maqaayadaan galnay qadada baabuur raaca iyo waxaa bixinaya isaga sheekh Aweys aa bixinaya magaciisu rasmigu yahay xasan nuur ayaa bixinaya almuhim aniga waxaan galay shaqadii aan galay macluumaadkeedii qaar waan hayay qaarna waa iga maqnaayeen qaarkan hayay wuxuu ahaa hindi in la yidhaha xaaji maxamed inay tahay weli tahay ee ku hadasha afwaxweyn dadka jooga magaalada way garanayaan magaalada waa la yaqaanaa waa qofta keliya ku hadasha afwamayga xasan nuur oo magaciisa dhagarta la yiraahdo Aweys waa madaxa shabakada qaraxyada ku dhajisa baabuurta waa maskaxdii ka dambeysay in la dilo hindiya xaaji maxamed waa horjoogii soo diyaariyay qalabkii loo isticmaalay dilkii wariye hindiya waa ninkii uu ka sheekeynay dhagarqabe Cabdirasaaq inuu u idmay hawsha indhaynta hindiya iyo diyaarinta habkii loo dili lahaa waxaana xasan nuur oo hadda isna ku jira gacanta nisa aan kula kulmay xabsi ay hay'addu maamusho waxaa ka muuqday xasan walwal cabsi iyo argagax waxa uu walwal ka qabaa natiijada dambigii uu geystay waxa uu noqon karo waxaana xasan nuur qayb ahaan qiranaya lugtuu ku lahaa dilkii hindiya isagoo ku doodaya inuu ahaa adeega loo soo dhiibay qaraxa oo ku simay gacanta Cabdirasaaq oo ahaa qofkii loogu talagalay inuu ku dhajiyo qaraxa baabuurka aniga maxaa la yiraahdaa magacayga waxaa la yiraahdaa xasan nuur cali aniga hadda runta iska sheego anigoo been ka dhaqaaqayo sidii markii horeba u xaqiijiyay saraakiisha nabadgudda haddana sidii inaan u xaqiijiyo rabaa anigu waxay ahaayeen wax baakadaysan oo shaabadaysan waliba baakad shaabadaysan oo shaabad ku xiran tahay bac madow ku sii xiran tahay ninkaas ayaa horta alaabtan ii soo dhiibay anigu wuxuu yiri ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamed Barrow waa isna qaananin reer Rafoola isku ahaa jirnay asagana Rafoola ayuu dugsi ku hayay anigana Rafoola ayaa deganaa marka wuxuu yiri waa isna ninkaas awdaga ah oo amar kale waa la soo siiyo kor laga soo siiyo rijaal niman kale rag kale ayaa amar soo siiyeen oo rijaasha ayaa amar soo siiyeen oo marka wuxuu dhahay rijaasha ayaa amar soo siiyeen amar kale oo qabaa oo hataa aniga ahaynin laakiin aniga waxaan ku adeegsahay adiga inaad alaabtaas u geyso alaabtaasna asaga iska leh waa alaab asaga oo leeyahay oo markaan arabti hoos u weydiiyay oo ku celceliyay oo in badan iga warwareejiyay madaxa iga warwareejiyeen wuxuu dhahay waa sandal hobo waay sidaas uu dhahay alaabtii sidaas aan ku soo qaaday waan imaaday degmada Cabdilcaziz ayaan imaaday 4 saac ayuu ugu soo wareejiyay bar meelahaas marka wuxuu dhahay u geey marka ninkaas u geey kulli rag kale ayaa anigana soo amreen asagana soo amray ma fahantay marka wuxuu u geey alaabtaas u geey alaabtii waan soo qaaday wuxuu yiri alaabtan hadii lagu qabto hatta aniga afaariga ma gali kartid xasan nuur iyo Cabdirasaaq Barrow waxay ku kala warqaadan jireen garoomada lagu ciyaaray Konis iyo Luujino halkaas oo ay isku dhigi jireen taageerayaasha ciyaaraha socda waxayna inta ciyaartu socoto awaamiir ku kala qaadan jireen gudaha garoonka taasoo adag in qof ka shakiyo rag odayaal ah oo mararka qaarkood iska dhigi jiray taageerayaal jidbaysan dhinaca kalena wata kulamadooda caadiga qorshahooda waqtigaas ka mid ma ahayn inay garoomadaasi ka geystaan dhibaato laakiin waxay ahayd goob ay ku kala warqaataan waxay sidoo kale ku kulmi jireen xeebta Liido oo ay ku wada dabaalan jireen iyagoo badda gudaheeda ku jira ayayna isku dhaafsan jireen warbixinada ay soo ururiyaan kadibna waxay ka wada shaaxi jireen maqaayadaha ku yaala Liido halkaas oo ka mid ahayd goobaha ay u isticmaali jireen inay isku dhaafsadaan xogaha dhagridda xasan aniga ilaa balanta waxaan oo ahayd maalin walba oo jimce kadib inaan kulanno oo ku kulanno wiish ama Konis maalmaha jimcaha khamiista mooyaane inta kale inaan kulanno wiish ama Konis badanaa waxaan ku jirnay kilometer 0 meel oo goomista u yaal meesha marka la soo dhaafo fay bas la soo dhaafo xoogga la soo moodo
oo laga soo baxo habar khadiijo waxa la soo dhaafo irdiida hore meesha qarax ka dhici jiray xoogaa la soo socda adiga darbiga imaaraadka inta la gaarin ka soo koow meel ku yaal goomista ninka yaqaan halkaas ayaa badanaa ku kulmi jirnay sheekadana halkaas ayaan ku dhimeysan jirnay aniga iyo Sheekh Uways isaga wuxuu ii yaqaanay macallin Maxamed anigana waxaan u ka saayay Sheekh Uways meeshaan ku kulannay waa sheekaysanay axwaashaan kala qaadnay intaas wuxuu ku hadlayaa telefoon oo Samsung ah wuxuu wataa laba telefoon mid waa Tecno midna waa Samsung Samsung waa weynka meelaha gudiin maaha waa mid xooga ka duwan waa modelkii hore oo adiga screen lambar saraakiisha badanaa wuxuu ugu qornay ka soo ugu qornay ilaa wax ku yoomay ama ku hadlay badanaa wuxuu lambarkaas ayuu ahaa bas nin wuxuu yiri hawshaas ayaan la hool baa yiri aan la diray yiri soo dhaw si warkiisu wuxuu badan yahay wuxuu ku leeyahay soo dhawow hool baan la diray culus hawshaas wuxuu u baahan tahay in laga shaqeeyo hawshaas waa inaan ka shaqeysaa laakiin hawshan ka shaqeynayo iyo arbabay iyo abday waxa dhacday marka waxa yiri intee wax ka bilaabna shaqo waxay u baahan tahay kharash u baahan tahay facility u baahan tahay nin door cidla ah wax ku qabanaa ma jiraan waxaanu hore dirtay waxa maxaa qabanaya maxaa qabta aniga marka wuxuu yiri saaxiibka waxa ku dadaashaa yiri hal shay ina xogtan soo dhameystirto halkan wuxuu igu soo bixiyay lacag adiga buuma u taa badana oo weyn oo xala weyn ugu tay wuxuu igu soo bixiyay 225 kun shilin Soomaali 200 farta iga saaray 25 kun oo meelahan oo kasoo bixiyay ijaab ugu tay saasoo isu tiri 25 tan wuxuu yiri maanta way bawraca kulaabo xaafada ku aad 200 wixii birida dambo fasilad ka dhigo hawshu waxa la rabaa inay soo afmajarto af amusna waa dahab wax telefoon la yiraahdo ma jiraan kasokow liida iyo garoomada ciyaaraha waxay xasan iyo Aways isugu imaan jireen goomeysta ku yaala degmada Cabdicasiis halkaas oo iyana kamid ahayd goobaha isku arki jireen xilliyada subaxiya waxa kaloo kamid ah goobaha ay ku shaaxayn jireen muddada ay ka shaqayn jireen dhagarta ay ku dileen hooyo Hindiye Xaaji Maxamed goob maqaaxi oo inta badan ciidanku ku shaaheeyaan oo loo yaqaan Faybasto halkaas oo ay ku dhaxmili jireen ciidanka si aan marnaba loo dareemin inay faq gooniya leeyihiin kadibna marka ay firaaqo helaan ayaa arrimahooda gaarka ka wada hadli jireen waxaana adag in la tuhmo goobaha ay ka dhigteen fariisimada qof si joogto u imaanayo aysan ka muuqan cabsi walwal la xiriira in laga shakiyo xasan oo ah maskaxdii soo abaabulay weerarkii qaraxa ee lagu dilay Hindiyo waxa uu soo diyaariyay minadii loogu xiri lahaa gaariga Allah u naxariistay Hindiye Xaaji Maxamed 2 December oo ku beegneed Arbacadii ahaydna maalin ka hor markii la qarxiyay Hindiyo waxaana uu qaraxa ka soo qaaday goob Quraan saar oo ku lahaa Muqdisho xilli laga soo baxay salaadii duhur isagoo ilaa iyo salaadii casar ku hayay qaraxaasi masjid ku yaala meel aan ka fogeyn saldhigga degmada Cabdicasiis halkaas oo uu la seexday qaraxa